waxaan rabaa marka 5 faa'iido oo laga dhaxlayo arrimaha networking-ka iyo xiriirka dadka ayaan rabnaa inaan wadaago. faa'iidada koobaad ee laga helayo xiriirinta dadka waxaa ka mid ah inay kuu noqoto meel aaraada aad dadka la kula wadaagtid. fikirka kugu jira meeshii aad ku hubin lahayd way. ma taqaanid waxa aad haystid inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin. waxaad la wadaagaysaa dadkaaga. waxaad u sheegaysaa iyaga. talay kaa siinayaan marka waxa weeye an exchange point way. meel aad dadka kula wadaagi kartid xogta u baahan tahay. marka aad fikrada dadka ka heshid. fikradaas waxay noqon karaan yaa og fikradihii mustaqbalkaaga dhan wax ka bedeli lahaa ama mashruuc aad waday oo aad rabtay inaad inta u qaadid ayaa laga yaabaa in inta fikir laga siiyo lagu yiraahdo war hayda fikirkaaga inta u qaad. meeshaas kuma fiicna waxay ku fiican tahay halka. marka faa'iidada koobaad ee muhiimka laga dhaxli karo maxaa ka mid ah in loo isticmaali karo as an exchange point inuu ku noqdo. faa'iidada labaad ee aad ka heli kartid waxa weeye waxaad noqonaysaa nin la og yahay. waxaad noqonaysaa nin la arko. noticeable ayaad noqonaysaa. dadka dhammaan ganacsatada, siyaasiyiinta, macallimiinta, cid walba ha ahaato waxay aad iyo aad uga faa'iidaystaan arrinta ku saabsan in ay noqdaan dad noticeable ah oo la og yahay oo la dareemi karo durbaba la soo xasuusan karo. haddaanba lagu soo xasuusanba maxaa wax lagu siiyaa maxaa fikir lagula wadaagaa maxaa lagaaga faa'iideeyaa mashruuc. nobody notices you. marka faa'iidada labaad ee muhiimka ee laga dhaxlayo arrimaha networking waxaa ka mid ah inay kaa dhigayso qof la dareemi karo la og yahay lagu xisaabtamo loona yeero mar alla markii arrimo loo baahdo. faa'iidada saddexaad ee muhiimka ah ee iyadana aad ka helaysid networking waxaa ka mid ah meel fursado aad ka helaysid way. dadkii kula jooga iyagii ayaa mar walba kuu soo bandhigaya 1 2 3 4 5 opportunities tira badan inta kaaga imaanaya. dadkii aad isku maskaxda ahaydeen ayaad la xiriiraysaa. waxaad la joogtaa dad ku yaqaana already ku bartay kartidaada fahamsan oo aanan ogolayn inay fursadaha noocan ku dhaafaan. qaarkood waxayba kuula helan yihiin si aan caadi ahayn. it's like inay iyagu hawshaas raadinayaan oo kale. marka arrimaha noocaas oo kale ah faa'iidada saddexaad ee ugu weyn oo ka helayso waxaa ka mid ah waxay ku noqon kartaa an avenue for opportunities inaad fursado ka heshid oo adoona ogeynba mustaqbalkaagii oo dhan fursadii dhanayda inta ku leexin lahayd ee multi-million dollar idea ama opportunity inayba ka timaado teamkaaga dhexdiisa. arrinta afaraad ee muhiimka ah ee faa'iidada aad ka helayso waxaa ka mid ah adiga waxaa ogaanaya meesha aad dadka ka joogtid. ilaa dadka markaad soo dhex gashid qof waliba fikir ku siinaya. waxaad ogaanaysaa meeshaad ku liidatid. waxaad ogaanaysaa meeshaad ku fiican tahay. waxaad ogaanaysaa meeshaad u baahan tahay inaad ka shaqaysid. waxaad ogaanaysaa where you stand. marka hore waxaa kaa buuxay fikrado laga yaabo inay totally irrelevant ahaayeen maba iska warhaynba. waxaad u haysta nin qatar ah oo batch soo dhameeyo masters haysto PhD haysto qiimo badanoo dadka ay u istaagayaan. dadkii markaa la dhaqanto waxaad ogaanaysaa inaad communication ku fiicnaynba. inaad ku liidatid tusaale ahaan xifdinta magacyada dadka. inaadan wicinba qofna dadkii networkaaga ku jiray in the last 3-5 months inaad wicin. inay dadka iyaga ku soo wacayaan kaliya aad ogaanaysaa. ilaa marka dambe marka aad ogaatid meesha saxda ee taagan tahay kadibna aad qaadid tallaabo ku aadan arrintaas sidii aad isaga sixi lahayd. faa'iidada shanaad ee ugu dambaysa waxa weeye marka waa meeshii aad ku kobci lahayd. sharaftaada iyo sumcadaada iyo haybadaada growth ayaa u imaanaya. waa nin la yaqaano lagu faano inaad garabka dadka taagan tahay ayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay magac u tahay. marka growth in starts way. adiga sharaftaada iyo sumcadaada ayaa kor u kacaysa. careerkaagii iyo shaqooyinkaagii iyo meelihii aad u sii socoto dhanna hore ayay u soconaysaa sababtoo ah connectionkaaga xoogan. your connection is powerful. intaasoo kun oo qof ayaa ku doodaysa. yaa yaqaan ma jirto. tira badanaa dadka intay qualificationskooda iyo howlahoodii ku soo baxeen noqdeen dad aad iyo aad u fiican kadibna la isweydiiyo la yiri horta yaa yaqaana la waaye cid taqaana. that's unfortunate. so don't do ku dadaal dadka inaad baratid. ku xisaabtan mar waliba inaad heshid network aad iyo aad u qiimo badan. waana meelaha aadka loo inkiro. Facebook sidaan u isticmaalna ka warso aad uma badno. meeqa qof ku jirta Facebookaaga 5,000 3,000 4,000
network sax ma ku yihiin waxaa laga yaabaa 200 ama 300 oo LinkedIn profile-kaaga ku jira barnaamijka LinkedIn ayaa laga yaabaa inay kaaga faa'iido badan yihiin ku siiyeen leads iyo businesses iyo customers kuu soo tilmaameen more than in ka badan 5,000 iyo 4,000 oo meeshan kugu jirto so network laftigiis markaad dhisaysid watch out si fiican isaga fiiri dad noocee ah ayaad dhisaysaa yaa waa cidda aad rabtid inaad la xiriirtid of course dadka aad raadinayso waa like minded-ka dadka adiga kugu fikirka ah dadka wax kugu soo saa'idin kara dadka wax ku dheer weeye marka networking waxaan rabnaa inaan inta ku soo koobno faa'iidooyinkaas shanta ayuu leeyahay qof waliba qofkii uu ka network badan yahayna nolosha guusheeda wuu uga dhow yahay himilooyinkiisana way u fudud yihiin inuu gaaro marka ku dadaal arrintaas